falimaha rasuullada cutubka 14 waxaa ikoniyon ka dhacday inay wada galeen sunagoga yuhuudda oo siday u hadleen aawadeed dad badan oo yuhuud iyo giriigba ayaa rumaystay laakiin yuhuuddii caasiyiinta ahayd ayaa waxay dadkii aan yuhuudda ahayn ku kiciyeen oo si xun ugu direen walaalihii haddaba wakhti dheer ayay halkaas joogeen iyagoo geesinimo uga hadlaya rabbiga kaasoo markhaati u furay ereyga nimcadiisa wuxuuna siiyey inay calaamooyin iyo yaabo gacmahooda ku sameeyaan markaasaa dadkii badnaa oo magaaladu kala qaybsameen oo qaar waxay raaceen yuhuudda qaarna rasuulladii markii dadkii aan yuhuudda ahayn iyo yuhuuddaba iyaga iyo taliyayaashoodii ay ku yaaceen inay caayaan oo dhagxiyaan ayay garteen oo waxay u carareen magaalooyinkii la odhan jiray lukaoniya iyo lustra iyo derbe iyo dhulka ku wareegsan meeshaasna ayay injiilka ku wacdiyeen dadka lustra waxaa fadhiyey nin aan cagaha xoog u lahayn oo tan iyo markuu uurka hooyadii ka dhashay curyaan ahaa kaasoo aan weligii socon isagu wuxuu maqlay bawlos oo hadlaya kaasoo indhaha aad ugu fiiriyey gartayna inuu rumaysad uu ku bogsan karo leeyahay wuxuuna cod dheer ku yidhi cagahaaga sare isugu taag markaasuu booday oo socday markii dadkii badnaa arkeen wixii bawlos sameeyey ayay codkoodii sare u qaadeen iyagoo afkii lukaoniya ku leh ilaahyadu waxay inoogu yimaadeen iyagoo sidii niman u eg barnabasna waxay u bixiyeen yubiter bawlosna waxay u bixiyeen merkuriyos maxaa yeelay wuxuu ahaa kii hadalka waday markaasaa wadaadkii yubiter oo macbudkiisu ku yiil magaalada horteeda wuxuu irdaha keenay dibiyo iyo ubaxyo isku taxan wuxuuna doonayey inuu dadkii badnaa la sadqeeyo laakiin rasuulladii barnabas iyo bawlos markay maqleen ayay dharkoodii jeexjeexeen oo dadkii badnaa ku soo dhex boodeen iyagoo ku dhawaaqaya oo leh nimanyo maxaad waxyaalahan u samaynaysaan annagu waxaannu nahay niman idinla dabiicada oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan inaad ka soo jeesataan waxyaalahan aan nimcada lahayn oo u jeesataan ilaaha nool kaasoo sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxyaalaha ku jira oo dhan kaasoo qarniyada tegey quruumaha oo dhan u oggolaaday inay jidadkooda ku socdaan hase ahaatee isu marag furla'aan iskama sii dayn laakiin wanaag buu sameeyey oo wuxuu samada idinka siiyey roob iyo xilliyo barwaaqa ah isagoo qalbiyadiinna ka dharginaya cunto iyo farxad markay waxyaalahaas yidhaahdeen ayay dadkii badnaa dhib kaga joojiyeen inay u sadqeeyaan iyaga laakiin waxaa antiyokh iyo ikoniyon ka yimid yuhuud oo markay dadkii badnaa yeelsiiyeen ayay bawlos dhagxiyeen oo magaaladii ka jiideen iyagoo u malaynayaa inuu dhintay laakiin intii xertii hareerihiisii taagnaayeen ayuu kacay markaasuu magaaladii galay maalintii dambena wuu ka baxay oo barnabas u raacay derbe oo markay magaaladaas injiilkii ku wacdiyeen oo kuwo badan xeer ka dhigeen ayay ku noqdeen lustra iyo ikoniyon iyo antiyokh iyagoo nafihii xerta ku xoogeynaya kuna waaninaya inay iimaanka ku sii wadaan iyagoo ku leh waa inaynu dhibaatooyin badan ku galnaa boqortooyada ilaah oo markay iyagii kiniisad walba waayeelle uga doorteen oo ay soon ku tukadeen waxay iyagii ku ammaano geliyeen rabbiga ay rumaysteen markaasay sii dhex mareen bisidiya oo yimaadeen bamfuliya oo kolkay ereyga kaga hadleen berga ayay waxay tageen itaaliya meeshaasna waxay uga dhoofeen antiyokh taasoo ahayd meeshii iyaga lagaga ammaano geliyey nimcada ilaah shuqulkii ay sameeyeen aawadiis oo markay yimaadeen oo kiniisaddii isu ururiyeen waxay uga warrameen waxyaalihii ilaah iyaga la sameeyey oo dhan iyo siduu albaabka iimaanka ugu furay dadkii aan yuhuudda ahayn markaasay wakhti aan yarayn xertii la joogeen